ku soo dhowow koorsadeenii koowaad ee xirfadda xulashada lamaanaha. Mudanayaal, waxaad ogtihiin sidaba noloshan adduunka Ilaahay markuu abuuray oo bili aadan abuuray xagee qoyska yimid. Awalan qoysku horreeyay keebuu ahaa, yaa isu guuriyey, xagee ku noolaayeen, sidee bay xulashadu ku bilaabatay iyo waxyaabaha la xiriira ayaanu maanta ku bilaabi doonaa. Dunida waad arkaysaan dadka ku nool Nabi Aadan ayaa u horreeyay calayhi salaam. Ilaahay ayaa abuuray subxaanahu wa tacaala. Abuurista Ilaahay dee dabcan asagaa garanaya baahideedana. Maanta dhaladan kumbiyuutarada cidda samaysay waxay og yihiin say u shaqaynayaan, waxay u baahan yihiin, shaqooyinkay qabanayaan, waxaasoo dhan. Sidaas si la mid ah maadaama Ilaahay abuna Aadam ka sameeyey ciid, Ilaahay wuxuu garanayay subxaanahu wa tacaala baahidiisa iyo noloshiisa iyo caafimaadkiisa sida ugu wanaagsan ee uu ku samaysan karo. Sidaa darteed baahidiisii koowaad waxaa Ilaahay ka dhigay una garanaynaa inay ahayd inuu helo wehel. Wehelkaas ayaa Ilaahay wuxuu u gartay umuna Xaawa oo feertiisa uu ka dimaacay. umuna Xaawa ee Nabi Aadam calayhi salaam Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa isu meheriyey. Cajiib. Jannada inay ku jireen oo dad ahlu janna ay ahaayeen, halkaasay ku noolaayeen. meherkooda Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa isu meheriyey. kadib waxaa abuurmay dad baa ka dhashay. laba qof ayay u dhalin jireen, wiil iyo gabar iyo wiil iyo gabar, si ay u tafiirmaan, mustaqbal u yeeshaan, ummadaha Ilaahayna ay ugu gudbaan. laba wiil iyo gabar iyo wiil iyo gabar markay u dhasheen, waxa Ilaahay sunnayey subxaanahu wa tacaala in ay sida ay u kala hooyayeen, u kala dhasheen, ay isu guursadaan. labadii hadda wada dhalatay ee labadii kaleeto ayaa si isweydaar ah isu guursanayay. maxaa dhacay marka? xulashadii u horreysay marka waxay ka bilaabatay Qaabiil iyo Haabiil oo ilmo Nabi Aadan. waad garanaysaa markii labadii gabdhood ay isku qabsadeen oo Qaabiil uu damacay in uu gabadhii mataanta ku ahayd guursado, kii kale waa ka diiday. ilaa sunnihii ma ahane. ka bacdi Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u garnaqay oo qurbaan cunto yiri meel dhiga. cuntadaas qofkii laga waayo meesha ayaa ah qofka saxan. sidaa darteed aayadda qur-aanka ku soo degtay waad garanaysaan, watul calayhim id nabaa ibni aadam id qaraba qurbaana fatuqabil min axadihima walam yutaqabal min alaakhar. wuxuu yidhi markii mid laga aqbalay kii doonayay inuu barnaamijkaas xulashada ah Ilaahay joojiyo oo asagu wax xusho ee laga guulaystay, la aqtulannaka bi waa ku dilaya wuu ku qanci waayey. kii kalena wuxuu yidhi haddaa aniga gacanta ii fidiso inaad i dilayso, anugu gacanteeda kuu fidin maayo, Ilaahay baan ka baqayay. walaalkii buu u dilay xulashadii darteed iyo doorashadii oo ay isku khilaafeen darteed. ogow, xulashay ahayd wixii dunidan keenay in la isdilo oo uu walaalki dilo, Qaabiilba Haabiil inuu dilo. halkaa waxaad ka garanaysaa xulashadu meesha ka timid ilmo Nabi Aadan inay ahayd. intii ka dambaysayna hadda taariikhda Soomaalida waxaa ka buuxa intaasoo qiso oo ay haween la isku laayay ay ku baaba'een rag badan oo aan dib ka wadaagi doono. sidaadana wixii la isku dili jiray geel iyo haween bay ahaayeen dhaqanka Soomaalida. boqorrada dunida jooga markay meela qabsadaan waxa ugu horreeya ugu muhiimsana waxay ahaayeen gabdhaha qiimaha leh ee waddankaa jooga inay afduubtaan ama ay ganiimaystaan. sidaa darteed geeridaas ku timid walaalkii uu dilay Qaabiil waxay ku timid xulashadii oo la isku khilaafay. intii ka dambaysay xulashadaas waa socotay, leanna waxaad garanaysaa waxa Ilaahay qofka ku abuuray waxa ugu horreeya shahwaad. shahwaadkan Ilaahay si lagu gudanaa wuxuu ku sameeyey lab iyo dhadig. wuxuuna u abuuray nidaam ay labadooda si sharci ah isugu shahwo gutaan. haddii taa la waayo si khaldan baa loo shahwo gudanaya haddii qofku caafimaad qabo, sababtoo qof meel taagnaanaya ma jiro. si taa ay u dhicin ayaa arrintan loo sunneeyey ah in dadku isguursadaan, si islaamnimo ay isu guursadaan, u wada noolaadaan. haddaba ogsoonow qoysku ugu horreeyey soo dunida inuu ahaa Xaawiye Aadam, in Ilaahay isu meheriyey
xulashaduna ka bilaabatay ilmihii Nabi Aadam labadii walaalaha ahaydna ka bilaabatay iskuna dileen xulasho darteed halkaana xulashadu ay ka soo bilaabatay waxaan fiirin doonaa inta ka dambeysay dee ambiyada Ilaahay ayaa xulashada soo dooranayay oo qaab u soo dhigayay nabiba nabi ugu soo dhiibay ilaa ay soo gaartay nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo asaguna qaab loogu jiheeyay xulashada iyo habkeeda waxaan ka dibgeli doonaa dhaqanka iyo xulashada iyo casriga cusub iyo xulashada iyo waxyaabihii la xiriiray kabacdina hoos waxaan u daadegi doonaa meelaha ugu muhiimsan ee ay tahay qofku inuu eego si uu u helo qof wanaagsan nolol dheer la qaata caafimaadkiisa iyo mustaqbalkiisa qayb ka qaata ka mid noqo xubnaha ka qayb qaadan doona dib u soo celinta quruxda iyo qiyamka qoyska Soomaaliyeed